kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada qaybtan waxaan ku eegaynaa dagaal iyo duqeymo culus oo hadda ka socda degmada Masaajid Algud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Degmada Masaajid Algud ayaa hadda lagu soo waramayaa in ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay gudaha u galeen degmada Masaajid Algud waxaana halkaas duqeymo ka wada diyaaradaha saaxiibada caalamka ee ka caawiya Soomaaliya dhanka hawada. xogtaas ayaan rabaa inaan kula wadaag haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ilaa channelka like iyo si shirgelisid si uu gaaro saaxiibada iyo kaleeta aad iyo aad u mahadsan tahay. Degmada Masaajid Algud ayaa lagu soo waramayaa in dagaal iyo duqeymo culus oo u dhexeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda Al-Shabaab uu hadda ka socdo maadaama kooxda Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay halkaas ay ku sugneen kadib markii kooxda Al-Shabaab halkaas ay kula wareegtay weerar gaadmo ay halkaas ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Masaajid Algud waxay ka mid tahay degmooyinka kooxda Al-Shabaab dhawaan laga saaray balse Al-Shabaab ayaa dib u qabsatay waxaana hadda gacanta ku haya degmada Masaajid Algud kooxda Al-Shabaab balse waxaa la rajeynayaa saacadaha socda in Al-Shabaab halkaas laga saaro ayna gacan ku haynta degmada Masaajid Algud ku soo laabato gacanta dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale shalay ay ahayd markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Ruurirgood ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab halkaas oo in muddo Al-Shabaab ay ku sugnaayeen bilihii la soo dhaafay. sidoo kale Al-Shabaab saaka waxaa laga saaray deegaanka Awoorey oo dhaca galbeedka gobolka Hiiraan waxaana saaka ay ku jarmaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ah ee halkaas degan. hadda waxaa lagu soo waramayaa in guud ahaanba gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Masaajid Algud uu ka socdo dagaal iyo duqeymo culus oo u dhexeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Al-Shabaab waxaana lagu soo waramayaa in duqeynta halkaas maanta ka dhacday la beegsaday xubno dagaalyahanno iyo horjoogyaal isku jira kooxda Al-Shabaab ka tirsan waxaana lagu soo waramayaa in halkaas kooxda Al-Shabaab lagu gaarsiiyay jab xooggan. sidoo kale waxaa jira khasaare dhimasho dhaawac ah oo soo gaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed balse ma cadda khasaaraha tiradooda intuu gaarsiisan yahay balse waxaa lagu soo waramayaa in halkaas hadda ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. dagaalkan waxaa barbar socda duqeymo dhanka cirka ay fuleen saaxiibada caalamka waxaana halkaasi lagu soo waramayaa in hadda uu kala socdo dagaal culus oo labada dhinac ah. sidoo kale Masaajid Algud waxay ka mid tahay deegaanada Al-Shabaab ay dib ula wareegeen si kastaba dagaalkan ka socda degmada Masaajid Algud ayaa imaanaya kadib markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay bilaabeen in ay dib ugu soo celiyaan deegaanada gacanta dowladda ka maqan shalay ayaa markii ay deegaano badan oo ka tirsan galbeedka gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe ay gacanta dowladda dib ay ugu soo celiyeen. idan waxaa la rajeynayaa Masaajid Algud in gacanta dowladda lagu soo celiyo maadaama ay ka mid tahay degmooyinka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe kana maqan gacanta dowladda federaalka Soomaaliya. hadda waxaa lagu soo waramayaa in hal dagaal culus ku socdo ma jira wax faahfaahin oo dhaafsiisan waxaana lagu soo waramayaa in khasaare labada dhinac uu jiro balse wixii war oo ka soo kordha adiga ayaa noqon doona qofka ugu horeeya daawada haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ila channelka like iyo share gareysid si uu u gaaro saaxiibada adigoo kaleeta aad iyo aad u mahadsantahay saaxiib.